بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaanta islaamka idinku salaama meel walba adduunka ka joogtaan. kullu caam wa antum bikhayr. waa barnaamijkeennii ahaa aafaaq, waana xalaqadiisii 8aad oo aan uga hadlaynay qur-aanka kariimka ah iyo daraasiintiisa. xalaqadan insha allahu tacaala waxaan kaga hadlaynaa suuratu lancaam. suuratu lancaam waa suurad qur-aanka kariimka ah kusoo degtay maka almukarama markii nabiga sal lla ly slam uu joogay cahdigii makiga la oran jiray oo nabiga sal lla ly slam uu ku noolaa 13 sano. suuradaha madaniga kusoo degay waa kasoo sheekeennay. waxay ka hadlaan nidaamka iyo sharciyada, axkaamta, cilaaqaadka caamka ah, arrimaha siyaasadda, diblomaasiyadda, dhinacaasay xoogga saarayeen. suuradaha makiga ah oo nabiga sal lla ly slam xilligii maka uu ku noolaa soo degay waxay xoogga saaraan caqiidada, waxay xoogga saaraan iimaanka, waxay xoogga saaraan qiyamka iyo akhlaaqda, tarbiyada bay xoogga saarayeen. walidaalika waxay ka koobataa aayadaheeda 165 aayadood. waxay soo degtay suuratu lxijri gadaasheed. suuratu lancaam waxaa lahay cajiibka la tahay oo runtii la wariyo athar ah, kulligeed hal mar bay nabiga sal lla ly slam kusoo wada degtay. suuradaha kale waxaan soo sheegnay in nabiga sal lla alay slam munaasabaad kala duwan ay kusoo kala degayeen. suuraddan ayadoo jumlo ah oo isku xiran baa hal mar ay soo degtay. waxay kaloo soo degtay waqti habeena. waxaa kaloo soo maaragtay galbiyey markii nabiga sal lla ly slam lagu soo dejinayo 70,000 oo malaa'ig ayagoo ilaahi subxana wa tacaala u tasbiixsanaya, u tahliilsanaya. marka suuraddan runtii waa suurad haybad leh oo qiimo weyn leh, oo markii qofka uu akhrinayo runtii uu arkayo cadamada ilaahi subxaana wa tacaala, weynaanta ilaahi subxaana wa tacaala, qudrada ilaahi subxaana wa tacaala. ilaahay kownkan uu abuuray, ilaahi subxana wa tacaala cirka uu abuuray, ilaahi subxana wa tacaala dhulkan uu abuuray, makhluuqaadkan ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo ka shekeynaysaa. markii laisku soo duubay hadafkeedu waxaa weeye suuratu tawxiid. waa suuradda ilaahi subxaana wa tacaala in la keliyeeyo, in ilaahi subxaana wa tacaala waxdaaninimadiisa la qiro, in ilaahi subxaana wa tacaala weynaantiisa la qiro, in ilaahi subxaana wa tacaala awoodiisa la qiro. waye suuratu tawxiid ama suuratu lancaam. walidaalika kulligeed marka suuratu lancaam kownka iyo dhismihiisa iyo cajiibnimadiisa iyo ilaahi subxana wa tacaala suu u qurxiyey bay ku wareegaysaa. ilaahina subxaanahu wa tacaala asagaa dadka isku baraya. suuradda marka waxayna baraysaa suuratu lancaam ilaahi subxana wa tacaala sida loo weyneeyo, ilaahi subxana wa tacaala sida loo qadariyo, ilaahi subxaana wa tacaala sida qalbigeena uu ugu weynaanayo, ilaahi subxaana wa tacaala weynaantiisa inay qalbigeena ku degto, ku xasisho, ilaahi subxaana wa tacaala maarata cabsidiisa ay nagu abuurto, ilaahi subxana wa tacaala jaceylkiisana ay nagu abuurto. suuratu lancaam ilaahi subxaana wa tacaala marka wuxuu ku bilaabay alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati wannuur. alla wuxuu leeyahy subxana wa tacaala alla ayaa mahad iska leh, allaha abuuray cirka iyo dhulka, iftiinka iyo mugdiga ilaahi subxana wa tacaala abuuray. alxamdu lilah. qur-aanka kariimka 5 suuradood baa ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ku bilaabay inuu asaga isku mahad celiyo ama xamdiga ilaah. waa suuratu lfaatixa oo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin, suuratu lancaam alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati walard, suuratu lkahf iyo suuradda la yihahdo saba iyo suuradda la yihahdo faatir. 5taas suuradood ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ku furfurtay alxamdu lilah, ilaah baa mahad iska leh. ilaahi subxana wa tacaala wuxuu kaloo ku dhamaystiray qur-aanka kariimkaa suurado alxamdu lilah, sida suuratu lgaafir oo kale markuu ilahay kasoo sheekeeyey watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarshi yusabixuuna bixamdi rabbihim. alla wuxuu yihi waqudiya baynahum bilxaqi waqiila alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. wuxuu kaloo ilaahi subxana wa tacaala kusoo khatimay xamdigiisa markii qiyaamaha la gaaro oo dadka la kala xukumo oo dadka dhaalimiinta ah xukunkooda la marsiiyey. alla wuxuu yihi faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin. suuratu lmaa-ida oo aan kasoo sheekeyna xalaqadii hore iyo suuradda markaa isku fiirisad cilaaqada ay leedahay ama maxaa xiriir ka dhexeeya, runtii waa cajiib. suuradda hore alla wuxuu ku dhameeyey aayaddii ahayd lilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihin. suuraddana muxuu ku bilaabay alle alxamdu lilah, ilaah baa mahad iska leh, ilaahaas cirka iyo dhulka milkigooda iska leh oo hantiyey oo sameeyey baa mahad iska leh. suuratu lancaam marka
boqol iyo lixdan iyo shantaas aayadood ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku taqriirinayaa towxiidka waana waxa ilaahay subxana wa tacaala cirka iyo dhulka uu abuuray oo ah in ilaahay subxana wa tacaala keligiis la keli yeelo alle saddex aayadood buu marka arrinkaas si hoose uga hadlay aayad waa aayadda 14 oo suuratu lancaam alle wuxuu leeyahay qul agayra allahi attakhidu waliyan faatir الsamaawaati wاlard يعني بقف آنا الله أهن ميان ولي كيرنا آيات لبعض وآيات بقولي أفرتمنات أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مقفا الله سبحانه وتعالى أنا هن ميان كدغنا يا حاكم الله سبحانه وتعالى أسقى بنوسو دجي قرآن كريم كأي كتبته أسقى بسو دجي يعني إن إله سبحانه وتعالى أسقى وهذا قفك شرعي يتشريعات كي حكمك إسكاله آيات صدحات وآيات سورة كل ما نس آيات كهر رئيس أو آيات بقول لحدني أفراد اللوح لا يقول أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء يعني إله سبحانه وتعالى إن لو كلي إله نمو يا رب نمو يحكم إن السكولات تحاكم إله سبحانه وتعالى أسقى حكم كله ديبته آيات مركز صدحات منا الله سبحانه وتعالى بالله وهرو دقا منا دحدو دقا منا دماتكو دقا كل قلنا التوحيد كإله سبحانه وتعالى بي كوريغا يعني سورة مركز سورة الأنعام إلا آيات قارة أفرتن إساقال آيادات بو إله سبحانه وتعالى وحو غشا كينا يا توحيد كيسا إن إله سبحانه وتعالى كل جيس أدون كان لوكالي يلو عبادة لوكالي يلو عقيدة لوكالي يلو مركز سورة الله سبحانه وتعالى وحو مقعدر سورة الأنعام أنعام وحولها آذنه أي نقضان أو أي رعدان أو هلبكو عنان oo caanahooda ay maashaan waa lo'da iyo geela iyo ariga iyo xayawaanka saxda ancaam Allah subhanahu wa ta'ala ayagu suurada ugu magac daray waana xikmad runtii aad u weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhowr jeer buu ku soo celceliyay kelmadaas al-an'am suuradan Allah wuxuu leeyahay waja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harthi wal-an'am nasiba فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا آيات الله سبحانه وتعالى وحو كل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه آياتك الله وحو ليها وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يعني أنعام تمرك وحاويه وحوله أي ذلك مشركين قيبا كمدنا ay yiraahdeen ilaahay baa iska leh qaybo kamidana ayaga ay maartay yeesheen kuwa kamid ah dheheen lama raaci karo kuwa kamid ah dheheen lama cuni karo kuwa kamid ah waxay yiraahdeen ragga iska leh yani heer waxay gaarsiiyeen ancaamtiba ay caabudaan ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul an'am mar tawxiidkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qiro mar ilaahay subhanahu wa ta'ala uu radiyo oo xujooyin iyo daliilo iyo cadeemo uu u keeno dadka mushrikiinta ah suuratul an'am marka waxay uga saaraysaa dadka diimaha aan lahayn dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala inkirsan oo mulxidka loo yaqaano kuwa loo yaqaano dahriyiinta mushrikiinta kuwaas ay wax u cadeynaysaa diinta kuwaas ay la niqaashaysaa oo la doodaysaa meesha suuradihii hore ay waqtiga badan galiyeen inay la doodaan yahuuda iyo kristanka leena suuradihii hore waxa ahaayeen suurado Madiina ku soo degay xilligii Madiina nabiga sallallahu alayhi wasallam uu joogayna waxa la noolaa yahuud iyo dad kristana laakiin xilligii Makka la joogay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu la noolaa Quraysh dad waxa ahayn wathaniina oo sanamyo caabuda kuwa dhagax caabuda kuwa dabka caabuda kuwa aan diin lahaynba dadkaas u badnaayeen suuratul an'am marka kuwaas ay la niqaashaysaa u cadeynaysaa diinta marka suuratul an'am waxa la cajiib kala taa waxa kamid ah aayadaheedu wuxuu u badan yihiin inay ka bilaabmaan qul ama inay ka bilaabmaan huwa markii huwa Allah uu yiraahdo aayad kale qul buu ka bilaabaa aayad kale marka aayadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka lagu baraya aayadna waxa la khitaabaya mushrikiinta iyo dadkii diin laawayaasha ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay rumeeyaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ay qaataan Allah marka wuxuu leeyahay wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum آياتك الله سبحانه وتعالى وحو ليه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار آياتك الله سبحانه وتعالى وحو ليه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة آياتك الله سبحانه وتعالى وحو ليه وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وهو ذي مركا وهو بسورة الأنعام وقصر النقطة مركا وهو اللي يرهده إلهي بي سبحانه وتعالى كبرسا إله سبحانه وتعالى مقاعيس إله سبحانه وتعالى صفات كيسة إله سبحانه وتعالى أوديس إله بكبريسا مرة مركا الله يراد قل وحاتر هذا يا محمد يا رسول الله
yaa sidaas sameeyey, yaa sidaas maaragtay qadaray, yaa sidaas abuuray. alla marka wuxuu leeyahay qul man yunajiikum min ظulumaati اlbari wاlbaxri. waxaad tirahdaa qul liman ma fi الsamaawaati wاlardi qul lilah. waxaad tirahdaa qul illaahu yunajiikum minha wamin kuli karbin uma antum tushrikuun. waxaad tirahdaa qul anadcuu min duuni illaahi maa laa yanfacuna walaa yaduruna. marka waxaa weeye qaabkaasi suurad u soconaysaa. mar ilaahi subxana wa tacaala ay aayaddu ku barto, mar ilaahi subxana wa tacaala uu la niqaasho, uu la doodo dadkii mushrikiinta ahaa. qaabkaasi ku bilaamaysaa ay ku dhammaanaysaa. suuratu marka ancaam waa suurad tawxiidka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo waxdaaniyadiisa ka sheekeynaysa. maanta insha allahu tacaala waxaan mixwar ka dhiganaynaa laba qodob oo muhiima. qodobka koowaad waxaa weeye cilmiga iyo islaamka isma diidaan, lidna iskuma ahan. islaamkuna cilmiga kama soo horjeedo. waa xikmada koowaad oo maanta insha allahu tacaala aan ka qaadanayno xalaqadeennan. cilmiga waxaan ka wadaa waxaan loo yaqaano hadda maadiga ama fiisikiska, sayniska, biologiga, cilmiga loo yaqaano cilmi falaga, cirka iyo maaragta weedarada, cilmiga geolojiyada oo hadda bilaadankii ay ku hormareen oo meel cajiiba ay ka gaareen. culumta noocaas oo sayniska ah iyo islaamka isma diido. suurat al-ancaam ilahi subxana wa tacaala wuxuu ku keenaya aayaad badan oo kowni ah, cirka iyo dhulka iyo hawada iyo ummadaha ilahi subxana wa tacaala uu abuuray buu ilahi subxana wa tacaala kaga sheekeynaya. kulligood marka waa daliilo iyo ishaaraad iyo tilmaamo kutusaya ilahi subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa iyo abuuristiisa. cilmigan marka sayniska iyo cilmigan tajriibiga ah oo aadanaha hadda meesha aadka u sarreysa uu kaga gaaray, ilahi subxaana wa tacaala qeybo badan oo aayadaha ka mid a buu kaga sheekeeyey. kulligoodna waa ishaaraad. qur-aankan kariimkan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu usoo dejiyey dadka muslimiinta ah casri kasta ay la nool yihiin inuu la socdo. casriga wuxuu la khitaabayey nabiga sal ly slam uu noolaa. casriga wuxuu la khitaabayey teknolojiyadan aan la gaarin. wuxuu la khitaabaya casriga hadda aan noolnahay. cusuurta soo socota iyo cusuur naga dambaysa ilaa yowm alqiyaama uu la hadlaya. alla wuxuu leeyahay suurat naxli wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuun. ilaahi subxana wa tacaala wuxuu idin abuuray fardaha iyo baqasha si aada ugu xaragootaan, u rarataan, ugu socotaan, transportation uga dhigataan. zamanka marka lala hadlayo waa zamankee? waa zamankii ay noolaayeen saxaabadii iyo 1400 sano ka hor, oo dadku ka dhigan jireen gaadiidka iyo qalab ay ku socdaan fardaha iyo isticmaali jireen. alla subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay aayaadkiisa ka mida subxaana wa tacaala. markaasuu ilaahay wuxuu ku khatimay wayakhluqu maa laa taclamuun. waxaydan idinku hadda ogeenna ilaahi subxana wa tacaala wuu abuuri doonaa. hadda casrigeena marka waxaa la maraya dadka inay ku socdaan gawaari, inay ku socdaan tareen, inay ku socdaan diyaarad, inay maaragtay ay teknolojiyada noocan ay ku socdaan. wayakhluqu maa laa taclamuun. waxaa laga yaabaa cusuurta naga dambeysa 500 sano 1000 sano kadib in ayagana aadanaha markaa nool ay la yimaadaan transportation ama wax gaadiida oo marka ay ku socdaan annaga aynan ogeyn. xil walba marka qur-aanka kariimka wuu la socdaa. waxaa loo baahan yahay marka dadka muslimiinta ah in hadba cilmiga markaas ay gaaraan, ay qur-aankooda ku fasiraan, maxaa la yihahdaa istinbaadna qur-aankooda uu tuso ilaahna subxaanahu wa tacaala iyo waxdaaniyadiisa ay geyso. ilahi subxana wa tacaala markuu suuradda marka ka sheekeynayay wuxuu ku bilaabay alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati wannuur. ilahi subxana wa tacaala wuxuu abuuray cirka iyo dhulka, iftiinka iyo mugdigana ilahi subxaana wa tacaala wuu abuuray. taasaa waxay tahay marka mucjizaadka qur-aanka kariimka ka mid a iftiinka inuu ilahi subxaana wa tacaala uu abuuray. hadda biniaadanka waxay marayaan iftiinka inay ogaadeen waxa adduunka ugu dhaqsaha badan inuu yahay iftiinka ama lightka waxa loo yaqaan ama dawga. hadda aadanaha waxay gaareen inay ogaadeen iftiinka inuu halkii sakanba ilbiriqsigaba inuu gooyo 300,000 oo kilomitir. qoraxda oo kale hadda markay saa usoo baxdo annaga iftiinkeeda wuxuuna soo gaarayaa 8 daqiiqo wax lagu qiyaas 8 daqiiqo. yacni 8 daqiiqo ka hor bay qoraxdaanu soo baxday, haddii laakiin iftiinkeedu uuna soo gaaray. marka waxa ay yidhaahdaan sanad dawiyada ama sanadka oo iftiinka wax ka dheerayana adduunka bilaadanku uusan gaarin ilaa hadeertaan. halkii sakan inay geyso 300,000 oo kilomitir oo wax yar dhidhiman.
ilaahay subxana wa tacaala marka iftiinka wuxuu ka dhigay mucjizaadkiisa ka mid a. alle subxana wa tacaala wuxuu leeyahy walahu maa sakana fi leyli wannahaari wa huwa asamiicu alcaliim. ilaahay subxaana wa tacaala wax walba oo bini aadan ah iyo makhluuqaad oo cirkii dhulka udhexeeyaba asaga ilaahay subxaana wa tacaala abuuray. ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay suurat lancaama wamaa min daabatin fi lardi walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamun amhaalukum. yacni wax walba oo dhulka ku socda oo daaba ah ama afar lugood ah ama laba lugood ku socda ama duulaya oo hawada ku nool ama bari badda ku dhex nool, xayawaan kasta ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray kulligood waa ummado, mid walba goonihiisu wuxuu yahay umam ilaa umamun amhaalukum. marka la fiiriyo aadanaha iyo xayawaanka iyo xasharaadka iyo kuwa xabadka ku socda iyo kuwa badda ku nool iyo kuwa hawada ku noolba kulligood ba ilahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi ilaa umamun amhaalukum, kulli waa ummado. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray nidaam iyo system iyo kala dambeyn bay leeyihiin, waa wada ummado. hadda aadanuhu wuxuu gaaray uu ogaaday yani anwaacda xayawaanaadka ama waxyaalaha noolaha ah inay yihiin 1,500,000 oo nooc. waa inta ilaa hadeertaan uu aadanuhu uu gaaray nooc oo noolo ah oo adduunka ku nool. waxaa la qiyaasayaa inay gaari karto ilaa 5 milyan oo nooc oo ummado ah, laakiin ilaa hadeertaan intay og yihiin oo xasharaad ah oo makhluuqaad ah oo hawada kuwa ku nool iyo kuwa badda ku nool iyo kuwa bariga ku noolba inay yihiin 1,500,000 oo kun oo xayawaan. kulligood waa wada ummado sida bini'aadanku u nool yihiin oo kale u nool. 200 sano ka hor baa bini'aadanku wuxuu gaaray cilmigaas oo tasniiful xayawaanaat, yani noocyada xayawaanaadka ay kala yihiin iyo 100 sano 200 sano meelahaas uu aadanuhu gaaray. aayaddan waxay ishaaraysaa 1400 sano ka hor in waxaas wada ummado ay yihiin. الله سبحانه وتعالى سورة الأنعام لفتة وحو كلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني إلهي سبحانه وتعالى وحو ليها غيبك فرياش وضعنا إلهي سبحانه وتعالى أيا كعنتك وهي وعنده مفاتح الغيب. الله سبحانه وتعالى أساقا وحو هيستا غيبك إفرياشيس، يعني غيبك إلهي سبحانه وتعالى وحو كريق سيدي البابه حرحرا وفرياشو إلهي سبحانه وتعالى أوهايو غيبك. مركا غيبكو وحاوي وأدون كان يسيد الله أبوري كونك إلهي سبحانه وتعالى سوء أبوري وغيب مطلقة آخرة يوحد دعدونا يقورتي آخرة دعدونتو يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله وقتك قيامه دعدون الله سبحانه وتعالى أنبأك qabriga iyo sida qabriga loogu nool yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala unba og, sida dadka loogu cadaabay ama loogu naxariisana Allah unba og. qiyaamaha markii la yimaado iyo sida xaaladda ay tahay iyo sida muuqaalka uu yahay Ilaahay unba subhanahu wa ta'ala og. wax bil aadanka ay og yihiin wax ka garan kara ma aha. ghaybka marka waa waxa dadka muslimiinta ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku rumeeyeen. suuratul baqara Allah uu ku soo yiri alladheena yu'minuuna bil ghayb. dadka marka maadiinta ah ama mulxidiinta ah ama aan diinta lahayn وحوض وايتوس يتابسي wax qayb leeradana ma ba aaminsana ina arko weeyo laakiin awood uma leeyina ogaadaan aadanaha ka hor sida ay nolosheedii sida adduunka ah bil aadanka laftiisa in noloshiisana ma ogaan karaan bacthiga iyo yawmul qiyaama iyo qabrigana ma soo saari karaan kulli waa qayb Ilaahay subhanahu wa ta'ala goonin la noqday. Allah marka wuxuu leeyahay indahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah subhanahu wa ta'ala barriga iyo badaba wax walba ku dhex jira alla waa uu ogyahay. badda makhluuqaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta dhulka saaran iyo kuwa lamid iyo ka badan baaba ku nool. culimada marka waxay yiraahdaan badda yani dhererkeeda cumqigeeda ilaa 4 kiilo ugu badnaan isku celcelis ilaa 12 kiilo oo hoos ah weeye oo dhiib ah gudaha sii galaysa. waxa xayawaan ku nool iyo si u nool yihiin iyo noocyadooda iyo si u tarmaan Ilaahay unbay subhanahu wa ta'ala u xisaabsan. alla wuxuu yiri ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمه waxa dhir adduunka ku yaal geedo geed kasta iyo caleemaha uu leeyahay iyo caleenta markay dhacdo inta dhulku dhacdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u xisaabsanta. Allah marka awoodaas leh oo subhanahu wa ta'ala cadamada noocaas leh asaga xaq wuxuu leeyahay in la caabudo kaligiis Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxdaaniyadiisa loo qiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo cibaadeysto Ilaahay subhanahu wa ta'ala xukunkiisana la qaato.
الله سبحانه وتعالى وحو ليهي لسوء آياتها كسي الله إن الله فالق الحب والنوى إلهي سبحانه وتعالى مرها يلفت asagoo ay kan kala dhambaala oo ka soo saara geedahan iyo dhirtan aad u jeedido aad maaragtay aad dhulka iyo cagaarka iyo ka soo saaraysa qaybna aad cuntaan aayad kale wuxuu leeyahay huwa alladhi ansha'akum min nafsin waahida famustaqarrun wa mustawda' ilaahay subhanahu wa ta'ala saa u dhantihiin bil aadanow hal naf buu idinka soo wada tarmiyay idinka maaragtay dhaliyay kulligiisa u dhantihiin oo nabi aadan calayhi salaam nabi aadan xaaskiisu ka abuuray kadibna awlaadoodii sidaasay u tarmeen jiilba jiil ilaa jiilkeennan saan u dhannahay marka kuwa muslimka iyo kuwa muslim ahayn kuwa cad iyo kuwa aan cadeen iyo kulli waxaan ka soo wada jeednaa halkaas taran alla wuxuu yiri fa mustaqarrun wa mustawda' inta waa leeyihiin kuwa nool iyo kuwa dhintay waxaas marka waa qadarta ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo awoodiisa iyo cadamadiisa alla subhanahu wa ta'ala marka wuxuu leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkaas uu abuuray koonka quruxdaas uu dhigay jamaalkaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u yeelay عابدا وإله سبحانه وتعالى أمر كي سقاط الله مركب وكسر قلنا سورة فمن أبصر فلنفسه قفكي أركه أو كعب رقاته وإله سبحانه وتعالى رميه هذا أسجى إمارة أسجى سبب بهذه ومن عمي فعليها نكي كإنكر أو إنها كلابتنا دي أسجى وطلع سورة الأنعام مركب نسقاسي كسعتا آيات كونئة محالي هذا وإله سبحانه وتعالى عظمة كتوسايا مارة ويناتي سكتوسايا بكهلسام aadanuhu marka hadda wuxuu gaaray inuu maaragtay cilmigii hormariyo istaadi badan sameeyo cilmi baaris badan sameeyo tajaarub sameeyo uu gaaro heer uu soo saaro culum badan kuwa biology la yiraahdo aadanaha iyo dhirta iyo xayawaanka iyo wixii quseeya physics kuwa ah oo xisaabaad iyo maaragtay awood iyo waxaas chemistry iyo sida wax iskula fangalaan علومته فلقة علومته جيولوجيا وحاس إنه ووضع علوم إسلامكنا علمي نوعاس ودي رجليي إن بالآدم كبرتان ودي رجل إلهنا سبحانه وتعالى القرآن كيسا وقوة إشارة وسورة الأنعام قف كفيرية وحقانا يا علومته نوعاس إن بالآدم كالفرق إن برتان إسلام كأي مركا ليد إسكما أهن علومته والله سعنا هذا لبدي بقول أصلا هذا وجودن بيجي آدنا وحقاري meel hore aan loo gaarin oo cilmiga iyo macrifada ah waayada horena bil aadanku 500 sano 1000 sano marbu wuxuu gaarayay isbedel weyn ama macrifada markaas cilmiga ay haystaan ay laba jibaarmays 500 sano marba laba jibaar noqonaysay macrifada aadana ilaa markii dambe qarnigii 18aad ay uu soo baxay bukhaarka waxa loo yaqaano oo ma aragtay tareenka iyo lagu wado muddo dambe waxaa la gaaray nuclear in la sameeyo kadib waxaa soo baxay koronto in la sameeyo waxaa soo baxday 1960maadkii iyo internetka waxa loo yaqaano 1990kii iyo wixii ka dambeeyay waxaa soo baxay website-yadan iyo ma aragtay telefonaadkan iyo Apple-kan iyo waxa la hada isdaba ordaya teknolojiyada ah hadda oo la marayo macrifada aadanaha ah labadii maalmood yani bishii labadii maalmood saddexdii maalmoodba way laba jibaarmaysaa haddaad week ka maqan tahay adduunkan ama aad baadiye aad ama soo saxatid waxa yani ka hor imaanay intaasoo aqoon iyo intaasoo buxuuth iyo intaasoo aragtiya iyo intaasoo cilmi baaris oo ku dhaafay waxaasoo marka cilmi ah waxaa la rabaa dadka muslimiinta inay la socdaan inaysan ka harin aysan ka dib dhicin aysan ayaga marti uga noqonin caalamka iyo horumarkiisa dadka reer galbeedka ah adiga muslina adiga lagu faray inaad waxaan maaragtay aad wax kala soo baxdid khayraadkiisa isticmaashid saan uga soo sheekeynay suuratul baqara waa in marka dadka muslimiinta ah ay cilmigan iyo macrifadan ay qaataan quruntii hore muslimiintu ayaga waxay ahaayeen dadka ilbaxda cilmiga iyo xadaarada iyo horumarka looga dambeeyay ahaayeen Yurub iyo Afrika iyo Asia kulli waxa loo imaan jiray عالم الإسلامي بغداد iyo دمشق iyo مصر iyo waxa loo tagi jiray in wax laga soo qaato cilmi laga soo helo muslimiintan ayaga waxa ahaayeen culumtii tajribiga dadku ugu horeeyay soo saaray Abu Bakr Razi ibn Hayyan ibn Sina maarat ibn Khaldun rahimahullah oo wuxuu ahaa faqih ah oo waliba maliki ah oo qaadi ah haddana aasaasay taariikhda iyo falsafada taariikh ama cilmiga loo yaqaan cilmu ijtimaacna aasaasay kitaabkiisii muqaddimat ibn Khaldun al-Bayruni baa la mid ahaa
يعني إسلام وحو لها علماء واوين وفلاسفة علماء واوين وعلماء منطقة علماء واوين وفلك برتي وحلم إذا ابن الهيثم رحمه الله وعلم كان فيزيكس تخصص كيسها يولب علم كان أركتذا علم البصريات ك نيك وحو الريو كاني أو اكتشافي إن إيش أيضا يسمى حبا أرك لكن ريفلكشن كإفتين كمركو كله سوعلت وحكا أركته ابن الهيثم رحمه الله يعني مسلمين وحا ضد كهر مرسن علومتان فيزيكس كيمستري عافمادك إيو كهر مرسن بأحيان يوروبيانكي baa tagay oo caalamul islaamiga tagay oo ka soo qaatay cilmigan tajriibiga ah oo cilmi baarista ah istaadiga ah soo qaateen wadamadooda la yimaadeen way diraaseeyeen way hormariyeen way tatwiiriyeen ayagaan hadda uga dambeynaa waxa loo baahan yahay dadka islaamka ah haday ay jihaad galayaan inay ku jihaatamaan cilmiga inay ku jihaatamaan waxbarashada inay ku jihaatamaan macrifada iyo tatawurkan caalamka yaala asagaas waxa la rabaa in number 1 xoog aan gelino waxaan u baahnaa marka awlaadeena ciyaalkeena in diintiina ay bartaan maadigina ay bartaan labadoodaba isku wada waliba culumtan adduunka hadda lagu hormaray in xoog la saaro sida fiisikiska iyo biologiga iyo teknolojiyada in lala socdo aan laga harin runtii oo ciyaalkeena aan barno hal abuurka iyo aqliyada fikirka iyo istaadiga iyo baxsiga ka dambaysa qodobka labaad oo runtii aan ishaarayna waxa weeye qodobka ah ilxaadnimada ama qofka aanan ilaahba aaminsaneyn waxaan kaga soo sheekeynaa xalaqada saddexaad oo barnaamijkeenan aafaaq qofkii raba dib ugu noqon karaa waxaan soo sheegnay xalaqadaas sababaha keena ilxaadnimada ama qofka inuu diintiiba ka baxo hadda casrigeenan aan joogno waliba dadkan u badan reer galbeedka la nool sababaha keena waxaan niri kow waxaa ka mid ah qofka inuu barto culumtan fiisikiska iyo maadiga uu barto asagoo aanan aqoon badan iyo macrifo fiican oo qoto dheer aan ka haysanin dhinaca diinta tanoo marka ku keenaysa inuu wax shakiyo oo uu isweydiiyo waxaan yaa abuuray kan yaa abuuray wax badanna uu maaragtay uu inkiro oo islaamka ka mid ah way keentaa quraanka kariimka ah nusuus waxaa ku jirta u baahan in waaqica hadda aan joogno lagu fasiro waxaa arkaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddu yidhi wa inna yawman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun axaadiis baa arkaysa oo nabiga sal ll ly slam ka sugan oo saxiixa sida xadiidkii nabiga sal ll ly slam uu yidhi uu lahaa ma garanaysaan meesha qoraxda ay aado markay dhacdo saxaabada yidhahdeen maya nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi mar walbay qoraxda ay dhacdo wixii aadaa carshiga ilaahi subxaanahu wa tacaala hoostiisa ay ku sujuudaa ilaa inta laga gaarayo maalinka dambeeto hadda aadankii u aadanay wuxuu gaaray qoraxdaba inaysan dhicin markay qoraxda ila dhulka waxa la yiri sidaas wuxuu u yahay banooni camal dhinaca markuu qorax u tahay dhinacaana habeena marka dhulkii waa saa u wareegsamaya haddana maalinka kala qoraxda dhinaca kale ka soo baxaysa marba qoraxda way joogtaa laakiin umad bay u joogtaa umadna habeen bay u tahay goormee marka qoraxda intay tagto waxay aadaysaa carshiga ilaahi subxaanahu wa tacaala ay ku soo sujuudaysaa arrimahaas waa arrimo badana ay isweydiiyaan ardaydeena anigana waan arkay runtii dad ardayda ka mid ah oo inta xadiiska arkay fiiskiis iyo biology iyo chemistry soo bartay ku weydiinayo ku dhahay macallin waxaan see ku dhacaysaa haddii marka qofkii macallinka ahaa markuu ardaygiisa su-aal noocaasa uu weydiiyo macallinkiina uusan mar badan bu u hembe fiiskiiska iyo biologyga iyo uusan aqoon badan u lahayn uu yidhaha waxaas wax ka jira ma lahayn uu inkiro naga tag u dhaho waa ibtilo ardayga wuxuu leeyahay haddee macallin fiiskiis iyo cilmigii la gaaray xaqiiq baad adigu diidan tahay yacni inuu kala duwanaadaan masjidkii cilmiga lagu sheegayay iyo jaamacaddii cilmiga lagu sheegayay waxay keenaysaa in ardayga uu shakiyo uu wareero وبالتالي علماء marka waxa looga baahan yahay cilmiga maadiga inay aragti ka qaataan inay buxuud ka diyaariyaan inay istaadiye ka sameeyaan si waaqic ay joogaan ay ula socdaan ardaydiina loo hanto masalada labaadna waxaan niri keena shakiga waa falsafada iyo waxa quseeya masalada saddexaadna waxaan niri waa duruufaha iyo baahiyada iyo faqriga iyo jahligana wuu keenaa iyo dhibaatooyinka qofka ku dhaca iyo dulmiga suuratul ancaam qodob kale oo muhiim ah runtii taabatay oo ah asluubka waxa weeye aadanaha uu u nool yahay way keentaa oo taas waxaan ka wadaa yani qofka bil aadanka haduu aabalaan soo koro ama abiis uu dhintay ama abiis uu noolaa laakiin uusan soo korin ama abiis uu la noolaa laakiin naxariis darro ku soo koriyay ama uu soo dulmiyay ama uu soo dhibaateeyay dad badan oo ilxaadka ku dhacay oo waxa jira sababahaas ugu dhaca waliba khaasatan aabaha iyo maaragtay iyo qaabka uu wiilka uu la noolaa marka waxaalaha muhiimka waxa weeye dadka faamilka ah in maaragtay furniinka uu yaraado
haddii xataa ay bilaadanku ay kala tagaan in awlaadda mar walba aabihii iyo xanaankiisii iyo ma aragtay cadfigiisii iyo naxariistiisii iyo tarbiyadiisii iyo qawaamadiisii waa inuu wiilkii helaa. hadda mujtamacana waxaa ku badan awlaad ay hooyo keliya koriso, sidii weliba qaxi uu u dhacay wixii ka dambeeyey hooyo unbaa ciyaalkii wada. siiba wiilasha oo kale markay weynaadaan way ku madax adkaanayaan. iskuul haddii loo yeero maamo unbaa taagan, dugsi haddii loo yeero maamo unbaa waalidkii taagan, ardaygii waalid waxaa weeye hooyo unbaa daba taagan. aabihii iyo dowrkiisii iyo tarbiyadiisii iyo kawarqabkiisii iyo xanaankiisii iyo cadfigiisii wuu ka maqan yahay. taas marka waxay keenaysaa in ciyaalkeena qaybo ka mid ay halis u galaan inuu ilxaad uu ku dhaco. arrintaa runtii waa in laga feejignaadaa ahamiyadda faamilka iyo weliba ahamiyadda aabbaha uu u leeyahay tarbiyadda awlaadiisa iyo ka warqabkooda. suuratul ancaam ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu kusoo gonaanuday aayado cajiib ah oo loo yaqaan alwasaaya alcashara, tobankii tolo oo ilaahi subxaana wa tacaala aadanaha uga tagay. qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana. iyo aayadda ku xigtay oo ahaa walaa taqrabuu maala alyatiimi, iyo aayadda ku xigtay wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu kaloo kusii xijiyey dadkan maaragtay u kala baxaya kooxkooxyada iyo xisbiga oo kadib isku laynaya lasta minhum fi shay. markii nabiga la hadlayay ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fi shay, alla subxana wa tacaala wuxuu amrayaa aadanaha midnimo, unit, isku dubnaan, ahdaafta guud iyo masaalixda guud ummadda leedahay in laga midaysan yahay. dadku way ku kala duwanaan karaan aragtiyo, way ku kala duwanaan karaan masaalix, laakiin danta guud, danta wadanka, maslaxadda diinta, maslaxadda jiilkeena iyo ummadeena waa in dadka ay common ka yihiin. yacni ma la isku khilaafi karo badda hadda Soomaaliya oo kale, ma la isku khilaafi karo hal boqcad ama hal mitir oo ka mid ah dhulka Soomaaliya oo kale, hawada oo Soomaaliya kale, intaas dhan waa wada muqadas. hawada iyo dhulka iyo badda iyo bariga waa ahdaaf caama iyo masaalix iyo amnul qowmi. marka waa in ummadda ay unit tahay. waxaa laga yaabaa in marka ummadihii qabiil isku diriraan oo gaalo la isku soo kaxaysto oo dhulkii iyo maaragtay ummadiiba la wada halaago. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى لم يقول الله يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاة ديدا iyo cibaadadeeda iyo nolosheeda iyo geerideeda kulli ba ilaahi subhanahu wa ta'ala bay u sugnaatay. la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. yani qofka bilaadanka wuxuu faran yahay inta uu nool yahay xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo sugnaantiisa iyo shaqadiisa iyo guurkiisa iyo noloshiisa guud oo dhanba cibaado ha ahaato, caqiida ha ahaato, dhaqan ha ahaato, akhlaaq ha ahaato, mucaamalaad ha ahaato, ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo manhajkiisa inuu qaato uu raaco. qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin. manhajka marka ay suuradda ku socoto dhan baa wuxuu yahay aayaddaas. qofkii aayaddaas fahma qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin wuxuu fahmayaa manhajka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noloshan ka leeyahay oo dhan. suuratul ancaamna intaasi ku wareegaysa. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu kusoo khatimay aayad cajiiba oo aan barnaamijkeena aan kusoo khatimanayno. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. إلهي سبحانه وتعالى أصيغ دولكان وحو idinkaga dhigay khaliifa. إلهي سبحانه وتعالى dhulkan uu abuuray, cirkan uu abuuray, hawadan, badan, xayawaanaadka tirada badan, ummadahaas si u dhan yihiin. إلهي سبحانه وتعالى idinku idin sakhiray, idinku wakiil idinkaga dhigay, idinku mas'uul idinkaga dhigay. Allah subhanahu wa ta'ala idinku marka wuxuu idinka sugayaa sida uu la tacaamushaan. waa manhajka bilaadanka looga baahan yahay intuu dhulka ku nool yahay inuu qaato. waxaad dareemaysaa marka xalaqadeennan iyo xalaqadii ugu horreysay aan barnaamijka kusoo bilownay waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa, suuratu lbaqara. isee iskugu xidhan tahay. yacni waa manhaj mutakaamil ah. qur-aanka si u dhan yahay, cilaaqu wada leeyahay, taraabud baa ka dhexeeya, wuu isku xiran yahay. yacni dhulkan bilaadankaa loo dhiibay, ayagaana mas-uulka ah. ayagaa la rabaa inay islaaxiyaan, inay camiraan, inay hormariyaan, inay musuq maasuqa la diriraan, inay cadaaladda sugaan, inay sinaanta ka shaqeeyaan, inay xorriyaadka iyo dadka xorriyadooda ay meel dhigaan, amniga iyo nabadda in laga shaqeeyo, bulshada horumarinteeda iyo islaaxinteeda wuxuu ku jiraa ilaahi subxaana wa tacaala manhajkiisoo la qaato. bulshada horumarinteeda iyo islaaxinteeda waxay ku jirtaa cadaalad in lagu dhaqmo. bulshada horumarinteeda iyo islaaxinteeda waxay ku jirtaa sinaan in la qaato. bulshada horumarinteeda iyo islaaxinteeda wuxuu ku jiraa xorriyadda
in la sara qaado mujtamaca horumarintiisa iyo islaaxintiisa wuxuu ku jiraa dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka iyo suluugeenu aan wax ka bedelno qarankeennii soomaaliyana waxaan ku soo celin karnaa dhaqankeena oo aan wax ka bedelno manhajka ilaahay subxaanahu watacaala ayo aan qaadanno dhulkoo aan camirno wanaag aan ka shaqeyno amal iyo diilada mujtamacina aan soo celino hamiga mujtamacina aan kor u qaadno wa ilaa liqaa'in aakhar wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh